kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta wararka warbixinada diblomaasiyadda maqal media group. waa maalimo isniina taariikhdu ay ku beegan tahay 26 bisha December 2022. ana ku bilownay dawlashana qiimaha badan hogaamiyaha da'da yar ee waqooyiga Korea Kim Jong Un ayaa maalmihii ugu dambeeyay dawlatus military oo aad u weyn kusoo bandhigayay xeebaha koonfureed ee Japan iyo kuurooyinka ay leedahay waqooyiga Korea. madaxweyne Kim Jong Un ayaa wacad ku maray inuu cagta mari doono wuxuu ku sifeeyay dalalka dabadhilifka u ah reer galbeedka asoo gantaaladiisa iyo hubka plastic missile la dhacay meela u dhow xeebaha amba badda Japan iyo koonfurta Korea. Kim Jong Un ayaa sanadihii ugu dambeeyay casriyeyn caadi ahaan ku sameeyay hubka gudaha ee dalkiisa iyadoo wadamada dunida ay geed ay ku xireen ay heer galbeedku ay u horeeyaan. Kim Jong Un ayaa u muuqda nin la hohli waayay kadib markii hub casriya iyo gantaalo waaweyn oo tijaabiyay taasoo uu sheegay kuna hanjabay inuu ku dhifan doono dalalka reer galbeedka. hogaamiye Kim Jong Un ayaa waxaa la arkayaa isagoo gabar yar oo dhalay gacanta ka haysta booqanayana meelaha hubka waxgumaada ee nuclear-ka kormeer ku sameynaya magaalada Pyongyang iyo gobolada kale wadankaas oo hubka waxgumaada yaallo. Kim Jong Un ayaa u muuqda nin dunida oo idil indhaha ka qabsaday meel maryanay awood military ee dalkiisa. dowladaha Mareykanka iyo reer Yurub ayaa cadaadis xooggan ku hayay balse dhag jalaq uma siin horumarinta hubka waxgumaada ee nuclear-ka ayuu wadar martijaabiyay wuxuuna ku hanjabay inuu ku dhifan doono gobollo kamid ah dalweynaha Mareykanka taasoo qalqal aad u sareeya gelisay dadka Mareykanka iyo dowladda Mareykanka. Kim Jong Un ayaa sidoo kale sheegay dalalka reer galbeedka inuusan aqbali doonin inay cadaadis iyo gardarro ay ku soo qaadaan wadankiisa taasoo haddii la isku dayo wax kasta oo dhibaato iyo madax banaanida dalka iga ayuu yiri hadday sameeyaan waxaan ku jawaabi doonaa hubkayna aadka u awoodda badan inaan ku burburino dalalka. Kim Jong Un ayaa ah nin kan ee dalkaas hogaaminayay aabihiisna ka dhaxla talada wadanka waqooyiga Korea. dowladda Japan ayaa sheegtay inay Koreada waqooyi ay kasoo leedahay xaalada waaweyn oo khatar geli kara madax banaanida dalka Japan. dowladda Japan ayaa sheegtay inay hubka amba cutub gaara oo casri loo tababaro loo sameyn doono ka jawaaba marxaladaha iyo xaaladaha la soo gudboonaada wadanka Japan. taasoo horaantii bishan ay gantaale waqooyiga Korea soo riday ay ku dhaceen xeebaha wadanka Japan taasoo Japan iyo xulafada Mareykanka ay dowlatus ay ku sameynayeen gacankaas taasoo Kim Jong Un na ka xanaajisay dandansiga isaguna uu faraha ka riday hub waxgumaada sida plastic missile. hubkaas aadka u weyn oo qaaradaha isaga gudba ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu Kim Jong Un oo mar waliba uu adeegsan karo. dowladaha Asia ayaa aysan iskuusan banaanayn haddii laga reebo tan Shiinaha ayaa xiriir dhow u kala dhexeeya hogaamiyaha da'da yar ee wadankaas Koreada Kim Jong Un. Master Un ayaa ah nin mayal adag oo dunida oo idinba ay ka cabsatay kadib markuu tijaabiyay hub wax ku ool ah oo meel kasta dunida sida ay sheegeen warbaahinta Koreada waqooyi gaari kara. dowladaha reer galbeedka ayaa geed ku xiray dalkaas balse ma joojin awoodeysiga dhinaca militariga balse dhaqaalaha ayaa laga curyaamiyay. Kim Jong Un ayaa wacad ku maray inuusan joojin doonin dalkiisa inta lagu hareereysan yahay sida uu sheegay. dowladaha reer galbeedku wuxuu ku tilmaamay kuwo cadow ah oo dalkiisa ka dhan ah marar badan oo ku hanjabay dalalka diriska ah ee xulafada Mareykanka iyo reer galbeedka
inuu adeegsan doono quwadda nuclearka hadday isku dayaan inay qarbudaan amniga waddankiisa, taasoo lagu soo waramayo dowladaha reer galbeedku ay wadnaha farta uga hayaan awoodda iyo hubka aan caadiga ahayn ay farsameynayaan warshadaha waddanka waqooyigaas Kuuriya. Kuuriya ayaa war laga haynin warbaahinta dunida ka xiran, iyadoo Kuuriyadaas ay ka jirto hal warbaahineed ay dowladda waddankaas waqooyiga Kuuriya iska leedahay. Shacabka waddanka Kuuriya ayaa meel shakaliya ay wararka ka qaataan. Dowladaha dunida ayaa aad ula yaaban awoodda iyo hubka wax ku oolka ah ay soo saaraan warshadaha waddankaas, iyadoo Maraykanku uu ku eedeeyay sirdoonkiisa dalka Ukraine dagaalka baahan ee ka socda inay hub iyo gantaalaha garabka laga rido oo dalka waqooyiga Kuuriya uu siiyey waddanka Ruushka, taasoo sirdoonka Maraykanku ay sheegayaan inuu dagaalku ay wax ka bedeli karaan gantaalaha casriga ee waddankaas uu soo saaro oo lasoo gaarsiiyey jamhadaha taageersan waddanka Ruushka ee ka dagaalamaya Ukraine. Dowladaha reer galbeedka ayaa Ruushka dagaal isaguna baahan oo kala dhexeeya oo dalka Ukraine. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa ciidankiisa ku amray inay burburiyaan hubka reer galbeedka ee soo gaaraya waddanka Ukraine inta la rakibin. Diyaaradaha howlan ee dalka Ruushka ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay si weyn ay u adeegsanayaan hawada waddanka Ukraine siday uga hortagaan sida hubkaas waddanka sidii la rakibay dhibaato weyn u geysan karaan, sida uu sheegay dalkiisa. Waaxda iyo wasaaradaha gaashaandhigga iyo ciidamada guud ee waddankaas uu la kulmay madaxweyne Vladimir Putin ayuu ku amray in laga hortago wuxuu ku sifeeyey cadowga dalweynaha Ruushka. Russia ayaa dagaal baahan kula jirta muddo 10 bil ah dalkaas Ukraine, iyadoo la isdhahayay Ruushku waa soo afjara balse ay ku daba dheeraata dagaalka baahan ee ka socda gudaha Ukraine. Reer galbeedka ayaa la garab istaagay maal iyo muruqba, Ruushkuna awoodiisa military u duldhigay, balse madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku tooqayay inuu ka guuleystay cadowgii soo weeraray waddankiisa. Mr. Zelensky oo tegay dalka Maraykanka oo la kulmay hogaamiyaha Maraykanka Joe Biden ayaa u sheegay inay araxda ka jabiyeen wuxuu ku sifeeyey soo duulayaal ku soo duulay dalka Ukraine. Wuxuu yiri Volodymyr Zelensky, waddankaygu isdhiiba ma doono weligiis, taasoo doonaya inuu taageero buuxda uu ka helo dalka Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka shir kulan oo la qaatay Mr. Biden ayaa sheegay inuu balaayiin dollar ugu deeqi doono waddanka Ukraine oo wax laga qabto waddankaas. Dowladaha reer galbeedka idil ayaa garab buuxa siiyey madaxweyne Volodymyr Zelensky. Mr. Zelensky ayaa noqday nin mayal adag oo u babac dhigay ciidamada awoodda badan ee waddanka Ruushka, taasoo Russia ku qasabtay inay dib uga noqoto qabsashadii qabsanaysay magaalada Kiev kadib markii diyaaradaha waddanka Turkigu farsameeyo ee droniska Bayraktar TB2 ay qarbudis iyo arbushid badan ciidamada waddanka Ruushka ay u geysatay afafka hore ee magaalada Kiev. Ruushka ayay qasab ku noqotay inay dib uga baxaan guud ahaan agagaarka iyo magaalooyinka waaweyn ee waddanka Ukraine. Dowladaha reer galbeedka heel iyo la garab istaaga waddanka Ukraine ayaa noqotay guulo kadib markuu madaxweyne Zelensky